بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 478 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taarikhda islaamka ay tahay 22 bishii toddobaad Rajab sanadka 1442 isla markaana waafaqsan 6dii bishii saddexaad sanadka 2021. aanu ku jiray mawduuceeni gabagabada ah oo ku saabsanaa ciwaankiisa al-amnu wa ahmiyatuhu fi al-fard wal-mujtama', amniga iyo nabadgelyada iyo istiqraarka iyo deganaanshaha iyo ahmiyada ay u leedahay shakhsiga iyo ummadda oo dhan. إن شاء الله تعالى بالربا سوق بين هدي الله هذا حديث كان إخوتي في الله ما تعنو قاضنا إنه وحديث أنه سوق قاضنا إني مارت من لمدة، خاصة حديث كشلي إنه قاضنا إني والله يشر أحدكم وشلي جمعة هيدا خميستي. حديث كان سيدا رقم كان نوها إنه تأصيلنا حديث كمركوه الرئية، حديث كبخاري مسلم ابن ماجه يغير كيبا ويسو صارين. إذا هو حديث صحيح ويان مسلم البخاري مرة يسو صاران ورك متشرو حديثك وحا ماركتي صحابة دورة أيا ورثة. حديثك هذا إنه كان مسوحيقا إن لفظ البخاري لفظ يسويان رقمك حديثك سيديتكن رقمك حديثك اللي حكون سيديت بقول تضباطني أفر وحاكلو البخاري وكشيغا تضبكن يتضباطن إلى تضباطن يكو. marka waa xadiis thaabita. marka xadiisku imaam muslim sidoo kale asna uu soo saaraya, sidoo kale ibn maajah asna wuxuu ku warinayaa ku soo saar raqamka xadiiska 2575 ila 2576 ila 2577 saddexda meelood uu ku soo saaraya. sahih jaami sagiir sidoo kale wuxuu raqamkiisu yahay 6217 iyo 6218 labaduba waxa weeyaan ayna marka sahih jaami sagiir waa asna uu maartay ku yaala. xadiidka ila dhowr saxaabi ayaa warisay. Abdullah bin Umar midkan hadaan haysano aan soo qaadanayna, Abdullah bin Umar ba warinaya. Abu Hurayra asna waa warinaya xadiidka, sidoo kale Abu Musa al-Ash'ari, Salamah ibn Akwa, intuba marka xadiidka dhowrka saxaabi ba xadiidka way warinaya. xadiidku marka waa xadiid saxiix oo thaabita. xadiidku waa xadiid kooban weey, waa jumla kooban weeye. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: man xamala ninkii qaada calaynaa korkayaga asilaaxa hub nagu soo qaada oo hub nagu soo weerara oo xadgudub maartay ummadda oo la yimaada hub, falaysa mina, naga mid maaha. annaga ninkii hub u qaada weya annaga nagu qaado bixanaa meelaha qaarkoodna alfaadaha qaar waxa soo arooray man maaragtay man shahara asilaax, yani ninkii hub يعني السيبة علينا كركا يجا من شهر السلاح علينا أي مارتي اللفظياشة قاركو صوارون تشير بمعنى السيبتان وسيف قالك كلام بعوي نينك أنك السيف نولب بحوي سيف بالله الشيء يقري بالله ميدا الديارات دي بالله ميدا مارت بيجي بالله ميدا. إخوتي في الحديث كان معنيه سو من حمل علينا السلاح فليس منا. أنك نينك هب نوصو نو قاضا وهب نو قاطا ونلايا دقال نو قاضا هذا مسلمين نهاي هنا بيقول فليس منا، نجا من ما نجا. الكل علماء هذا الله بلام بيجريان، لكن مرك اللي سكوسا أوروريو لبا معنهم مكوسا أورسنا يا. نينكا هوب كمسلمين تقاضي وقاضي أو دجال كمسلمين تلقى أو ملاين هيا لبا مدون ويا. إنه لي جود حلال شدي أو أرك إنه حلال ويهين إنه لايو. تانا كفر بكين سابلي. أو قفك ضدك المسلمين تا inay gaala yihiin wark oo dhiigoodu uu xalaashado wax xukun oo islaam oo marka uu daliishanayana aan jirin, marka gaalnimo noqonaysa. istihlaalu dam almuslimiin waa kufri weey. dam almuslimiin qura ma shay kaste oo shariicada islaamku ay banaysay ama ay mamnuucday, shariicada islaamku mamnuuc ay ka dhigtay, ninkii baneeya kufri bay noqonaysa. khamri wuu banaystay, zinadii wuu banaystay, ribadii wuu banaystay, waa gaalnimo weey.
dhiigga muslimiinta hadduu banaysto way ii banaantahay uu dhahana waxa weeye waa gaalnimo weeyaan bal taa waa qodob weey waxa kaloo qodob labaada inuusan gaalo u arkin muslimiintan uu dagaalka ku qaaday inay gaalo yihiin uma arko laakiin ictida iyo xadgudub iyo dulmi weeyaan wuxuu xubka u qaaday u laynayo marka ama xoolo ka qaadato dhacdi buu u laynayaa ama jaga iyo wax la mid xukun aad heeshi buu u laynayaa adu wixii kale u laaya hal laakiin inay gaalo yihiin uma ictiqaadsano inay muslimiin yihiin buu ogyahay dulmi iyo xadgudub weeye ka hadduu noqdo mar gaaloobayo laakiin kabiira min al-kabaa'ir weeye marka falaysa minna waxay soo hoosgal labadooduba ka hore istixlaal xalaashaday hadii la yiraahdo falaysa minna waxay noqon naga mid ma islaamka shaqo kuma leh muslimiinta ka mid ma way kan laakiin aan xalaashanin laakiin dulmi iyo xadgudub u laynaya falaysa minna wuxuu soo hoosgal falaysa min hadina wa tariiqatina way sunnadaanadii iyo tariiqadii nabiga iyo wadadiisii ma haya way way khaldan buu ninka ku taagan yahay way idan macnaheedu waxa way man xamala calayna dushayada ninkii ku qaada asilaaxa hub oo hub noo soo siibta weeyaan bimacnaa hub nagula dagaalama falaysa minna hadduusa dhiigga nagaxa muslimiinta dhiiggooda usa xalaashanin oo xadgudub iyo dulmi ay tahay falaysa minna min hadyina wa dariiqatina dariiqadaanada iyo hadyiga iyo wayga aanu iyo habdhaqanka annaga midna muu hayo wey haddii uu inay xalaal dhiiggooda u yahay u banaysanayana falaysa minna min almuslimiin ka mid maho min alislaami shay shaqa kumulaha islaamku waa gaalnimo weeyaan bule yuu noqonayaa idan warkii oo laisku soo ururiy ikhwati filaahi muslimiinta oo maaragtay la laayo oo dulmi iyo xadgudub loo laayo ama dhiiggooda la banaysto khuduurada ay leedahay buu xadiidkan ku tusinayaa xadiidkan macnahan u keennay waxaa weeye amni baanu ka hadlaynay idan qofka hub u qaata muslimiinta amnigoodii iyo istiqraarkoodii iyo tumaaniinadii ku jireen ka saaro argagax iyo rubci ku rida khuduurada ay leedahay wey ummaddu amni bay ku jireen nabadgelye haysteen ninkii ka dhex kaco hub u qaata oo dhibaato uga marka amni darru ku ridaya amni darro mar hadduu ku ridayna waa khatar wey idan amniga in laga saaro ummadda oo istiqraarkoodii iyo deganaanshahoodii loo diido oo rucbi iyo khoof lagu rido lama ogolo idan wax kastoo amniga ummadda ka qaadaya islaamku waa diiday amni darro waxa ku ridayana waa la mamnuucay amniga in laga qaado lama ogolo marka hub qaaditaan iyo dagaal lagu qaaday ummadda amnigii buu ka qaadaya lama ogola arrinkan waa arrin khatara wey arrin khatara wey man xamala calayna silaaxa falaysa minna ninkii hub annaga noo qaada dagaalna la gala muslimiinta la dagaalama isagoo islaam sheeganaya hadduusa gaalo u arkin muslimiinta dulmi iyo xadgudub u laaya naga mid maho dariiqadii nebi maxamed iyo waddadiisii kuma socdo wey ama hadduu xalaashada dhiiggooda waaba gaalnimo weeyaan idan khuduurada ay leedahay amni darradu ama ummaddu amnigooda marka laga saxbiyo argagax la geliyo nahyiga ku soo arooray iyo diidmada iyo digitaankuu ka digay ba xadiidka tusinayaa dhinaca kale qiimaha amnigu uu leeyahay iyo nabadgelyadu iyo ummadda in la badbaadiyo deganaashada iyo istiqraarka iyo tumaaniinada iyo amniga haysatana aan laga qaadin ayadna dhinaca kale mafhuum mukhaaladiya laga fahmaya idan kabiira min alkabaa'ir weeye qatl maarta nafs maarta mu'mina oo macsuumu dam ah in la dilo kabaa'irta waaweyn buu ku jira waa ku nabigu calayhi salaatu wasalaam ulaa xadiidkii cabdullah bin camr bin caas alkabaa'iru alshraaku billahi waa kii dhihi jiray wa xuquuq lwaalidayn iyo marka wuxuu wadaba wa qatlu nafsi baa ka mida nafti oo maaragtay la dilo naf macsuumada oo shareecada islaamka ee mamnuuc ka dhigtay in la dilo oo la dilaa ka mida kabaa'irta waaweyn bay ku jirtaa marka ikhwati fillah ilahi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusa nuguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa idan hubqaadasho ummadoo la laayo ummadoo lagu xadgudbo intuba waygii nabi maxamed iyo dariiqadiisii way ku gabsiinaysaa idan inay ummadda amnigeeda loo daayo istiqraarka aan laga qaadin wax alaale wixii amnigeeda u sugahaya loo sameeyo saasuu sharciguna amrahaya sharcigu saasuuna amrahayaa amni darre in ummadda lagu ridanaa sharcigu waa nooga dighayaa marka qof kastoo muslimahow maarata almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadih ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam muslimku dhabta ah waa midka ummaddu ay gacantiisa iyo carabkiisaba ay ka nabad galaan
idan waa khatar wey. marka idan saad islaamnimadkaadu ay dhab u noqoto od u xaqiijiso islaamnimo kaamila aad ugu sifowdi, carabkaada iyo adinkaadaba ha laga nabad galo. amniga iyo istiqraarka ummadda haysato ilaali, dhinacaada yaan laga soo gelin, adiga yaan lagu soo marin, adiga ha laga nabad galo, adiga xaggaadan ayaan laga soo gelin. qof kasta hadduu mas-uuliyadda qaadi lahaa oo asna laga badbaadi lahaa, xaggiisa inay muslimiinta looga yimaadana uu maarata laga badbaadi lahaa, mujtamaceenu amni iyo barwaaqu ku noolaan lahaa. laakiin in badan oo ka mid a yaana ayagiina laga nabadgeli mahayo, in loo soo marana laga nabadgeli mahayo, xaggoodii baa looga imanaya, ama ayagii baa lasoo adeegsanayaa, ama ayagii baa sahlahaya, ama ayagii naftirkoodii baaba marka yaa ku amni daradii ku dhaqaaqay. waa arrin khatara weeyaan. hal mar baa ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wa sifaat alculaa inuu xaqa na tuso, nagu irsaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baan xadiidka lafdigiisa ku celinayaa. alxadiid 478 can cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma can الnabiy sala allahu alayh wasalam qaal man xamala calayna asilaaxa falaysa mina, rawahu lbukhaariy wa muslim wibnu maajah walxadiidu saxiix. hada wsala allahu cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu.